ugu yaraan 19 ruux ayaa la wariyay inay geeriyoodeen tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib toogasho ka dhacday college ku yaala gobolka Crimea ee Ruushka hore u qabsaday. Wiil 18 sano jir ah ayaa la sheegay inuu weerarkaasi ku qaaday college lagu magacaabo Kyiv Technical College kaasi oo markii uu halkaas galay toogasho ku bilaabay ardaydii ay dhiganaysay ka hor inta uusan isdilin sida ay sheegeen baarayaasha dalka Ruushka. dad goobjoogayaal ayaa sidoo kale waxay wariyeen in halkaasi uu ka dhacay ugu yaraan hal qarax oo aan loogeyn waxa uu ka dhashay ma cadda ilaa iminka ujeedada ka dambaysa weerarkaasi. Ruushka ayaa gobolka Crimea la wareegay sanadkii 2014 la wareegitaanka gobolka Crimea ee dalka Ruushka ayaa waxaa cambaareeyay wadamada reer galbeedka. Ruushka ayaa gobolka Crimea la wareegay kadib dagaal dhex maray mucaaradkii oo Ruushku taageerayay ciidamada wadanka Ukraine ee ka dagaalamayay bariga dalka Ukraine. waxa soo baxaya weerar iskhilaafsan oo ku saabsan weerarkaasi. wiilka la sheegay inuu weerarka ka geystay college-ka ayaa magaciisa booliisku waxa ay ku sheegeen Vladislav Rolyakov. baarayaasha Ruushka waxa ay sheegeen in wiilkaani uu markii dambe